muddaxileedkii ka dhammaaday ra'yi caamka isaga ayaa jaangoynaya doodaha mucaaradku ay ka hadlayaanna u abuuraya qaabaynaya ilaa fulinayana doorashooyinka dowlad goboleedyada koonfurta dalka waa farsamayaqaan go'aansaday inuu talada koonfurta keligii saydareeyo haddana lama qariibsan karo tu'du taada keliya maaha ka farxalashadii baydhabo ma jawharba dhuusamareeb mise waa fiila baydhabo iyo guddoon cusub oo golaha shacabka maxaa u qorshaysan fiila soomaaliya iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud doorasho sugaya in laga heshiiyo iyo madaxweyne doorasho ku dhex jira mucaaradku waxay doonayaan doorashada heer federaal in laga wada hadlo waxay ku mashquulsan yihiin soo saaridda war-saxaafeedyo kulamo dalal kala duwan lala yeelanayo iyo shirarka dhexdooda oo soo socday 24 bilood ee la soo dhaafay kuwaas oo aan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku khasbin kalaabashada doodihiisa la xiriirta doorashooyinka dalka laakiin fiila Soomaaliya waxa ay ka soo dhamaatay hadda baydhaba hanaan doorasho oo nooc ku cusub Soomaaliya ayayna yagleeshay waa nidaam bilow ilaa dhamaad ay maamuleen guddi doorashooyin federaal oo ay mucaarad ku diidan yihiin nidaamka doorashada iyo imaanshaha aadan madoobe ee madaxtinimada deegaankaas oo maamuli doona 70 kursi in ka badan oo koonfur galbeed heer federaal ka aada hadda waa waaqac xaqiiqo ah oo aan dib looga laaban karin saxidiisa sida ay qabaan dad badan oo falanqeynaya siyaasadda laakiin mucaaradku door diidmo iyo aqbala midna lagama hayo wali marka laga reebo xubno kooban oo si cad u duraya hanaanka isdoorashadii baydhaba oo la mid noqotay tii ay toddobaadyo ka hor ku guuleysteen madaxda Tansaaniya iyo Uganda iyo Jamhuuriyadda Djibouti hore mucaaradku waxay si weyn ugu diidanayeen in guddi doorasho oo federaalka laga magacaabay ay maamulaan doorashooyinka dowlad goboleedyada laakiin hadda doodaas waa laga gudbay oo baydhaba ayaa lagu soo dhidbay guddiga doorashada ee federaalku arrin ay ka shaqeeyeen oo ah doorashada aadan madoobe oo ku soo baxay jadwal shaqo oo ka kana madaxweyne xasan sheekh maxamuud jawhar ayuu tagay mashaariicna waa u daahfuray kama cararin sheegidiisa la xiriirto qorshaha doorashooyin toos oo la mid ah baydhaba oo laga sameeynaya Hirshabeelle waa janta siyaasadeed ma aha cambaareen iyo hadal waqad lagu qoray toona fulintana guddiyada doorashada ayuu amray in isku diyaariyaan aayada dhuusamareeb ilaa jawhar oo meel mar laga dhigo doorashooyin isku sidkan oo la mid ah tii baydhaba 2 toddobaad gudahood siyaasiyiinta mucaarasan hanaanka doorashada xasan sheekh kuma diidana qaybtood in cali guulaawo ku soo laabto isla jidkii aadan madoobe ku soo baxay qaarkood oo si weyn isku hayaan fiilada ayaan u sii dabaaldegaya in guulaawo uu haysto kaarka GSB ilaa haddana waxay u arkayaan xaliif u wanaagsan ninkooda waa isdhexgal siyaasadeed oo aan dah saarnayn oo ay mucaaradka qoonda wadaagayeen xasan sheekh ku adag tahay inay ka hor yimaadaan shakina male in doorashada federaalna cabasho badan halkan ay ka jiri doonto habraacyadii hore loo dajiyay ee guddiga doorashooyinku ay soo saareen in lagu shaqo galo madaxweynuhu waa amray waa geedi socod muujinaya madaxweyne aysan ka qasnayn dhexdan uga jirin dhahawareer siyaasi